xubnaha halkan maraya baarlamaanka waxay ka kooban yihiin guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada. Ujeedada socdaalkaygu waxa weeyaan inaan horta guud ahaan ogaano xaaladda gobolka uu ku sugan yahay. Waxa kaloo aanu doonaynaa inaanu ka furno xafiisyo baarlamaanku leeyahay inaanu gobolka ka furno. Wuxuu ka mid yahay xafiisyo dhowr oo aanu ka furayno gobollada dalka. xafiiska ugu horreeya maanta waxaanu ka furaynaa haddii la yidhahdo berita aroorta booramaanu ka furaynaa. ujeedada socdaalkayguna waa inta. waanu ku faraxsannahay inaanu maanta joogno gobolkii awdal anagoo ah guddigii joogtada ee golaha wakiilada Somaliland. socodkayagu iyo xogeeyay guud ee golaha waxaa socodkayagu daaran yahay inaanu ogaano nolosha lagaga nool yahay gobolka iyo arrimaha maxay ahayd indha-indhayna iyo annagoo ka furayna xafiis golahu leeyahay oo ah xafiiska ugu horreeya laga furo gobollada dalka. inta kalena insha allah aanu ka furi doono gobollada. waa mahadsantihiin, aad baanuna ugu mahadnaqaynaa gobolka awdal iyo dadkana soo dhoweeyey. asalaamu calaykum. waxaa maanta sharafiya inaan ku soo dhoweeyo guddiga joogtada ee golaha baarlamaanka degmada Boorama oo ay uga socdaan hawl ku saabsan dhisme ay ku shaqeynayaan baarlamaanka guud ahaan. sidaa la ajligeed waxa maanta sharaf iyo qadarin mudan in si qurux badan aan uga horniminay oo ku soo dhaweynay degmada oo si gacmo furan iyo kaliya laaba annaga oo kuna faraxsan maanta hawsha weyn ee degmada ku soo kordhay. waxaan leenahay golaha baarlamaanka guud ahaantiida aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin tixgelinta iyo mudnaanta gaarka ee soo siiseen degmada Boorama. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أقول أنواع محضنقو لما نقول هالدينجا دجمة بورما جارحان بدون بحجيك نقول هالدينجا بورما دولت كمجال بورما نجده هريبي وربحين كمان الدار من السينو وحنا هاي بدي نشوف كذا نقولها وكيلة ده شغال معلومات كي عالية هاي أيام كبد الشلة حنوصل على دور عربون أرنت كوي وحويان إن أنا حرم برلمان كسمال لا يلنا يوم وهذا دمشتران قلب كذي رسمي دي بقى أنا كفر نوع حركة لقيتشرو مجال بورما بريبة إن شاء الله حفلة بلارن وسدوياش مساردها يو حياتها كلا الدولة هيبقى ما إن شاء الله كسور الرجال دونا الحركة كسر دونا هؤلاء كلا نوصلوا وحكم إذا أنا نطلب لنا قيمة كدولة بالشدة يو هدي بين كده اللي هي واحد دولة أنتي وقت النوسة محو ويقول الرئيس نطور بحنا إن شاء الله كده يصير دونا بلاد ديجان كا مجال البورما وقت إن شاء الله وحتشوف دونا مجالدا عوا إلا بريء مالي شقاء أي الحوش بسوق الجميل دونا إن شاء الله سلوك كله وحامو بحضرنا مجالين كله وبربراء يقرأ عباي كمية هاي إنساس ترتب وحتشعلها إن أنا لسه هذا الكا يوحي أنا قرنا هاي با فرتانكا حفلة بري إن شاء الله يقول عدوتا ما أنتنا كلمة ده محلقة يقولها ديان كدور بقى محلقة إنه أيوة حنا كتشيدينا هذه أكبر ما ستين سلوين تديران مكلف لنا يقولها ديان كا غير بورما وما يرتحجين كهرك عي هذه أكبر ما ستين. وأنا كفر حصل هنا نقول كذا بورما نشوف ما أنت أعلم من هذا وفي ورا الضبطة إن شاء الله إلهي يقدمين يقدمين السلام عليكم. golaha wakiilada ee uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga joogtada xiligan buuba iyo xogeeyahooda guud. wallaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa kallay maanta aan fadhinaa waxa farxadda qiimaha leh ee golaha wakiilada aan uga mahad celinayno doorashada ay soo doorteen degmada Boorama inay ka furtaan xarun ay ku shaqeeyaan ama ay ka hawlgalaan. taas ayaan ka gola deegaan ahaan maanta farxad weyn noo ah
wixii hadala ama shaqaa gadaal iyo berri bay noo noqon doontaa maanta keliya waxaan u kordhinay waxa weeye soo dhaweetooda si qurux badan oo hufan oo kaliya laaba ayaan leenahay kusoo dhawaada degmadiinii gobolkiinii waxa weeye waddankaad hogaaminaysaan u tihiin wakiilada waxaan leenahay gacmo furan kusoo dhawaada